Roble oo loo diiday inuu dalka ka baxo dacwadda kiiska Ikraan Tahliil oo loo fariisanayo Fahad iyo Faray oo laga dalbaday inay keenaan cadeymo ay ka hayaan kiiska Ikraan Tahliil ee quseeya Roble ayaa loo diiday inuu dalka ka baxo xilli uu xilka wareejiyay. Roble ayaa la sheegay in lagu amray ama lagu wargeliyay inuusan dalka ka bixi karin, waxaana loo sheegay in dacwado ka dhan ah isaga laftiisa ay ka yaalaan maxkamadaha adduunka iyo maxkamadaha Soomaaliya. waxaana lagu wargeliyay in uu xilka markii uu wareejiyo oo ku sugnaan doono maalmaha soo socda iyo bilooyinka soo socda gudaha Muqdisho ilaa inta ay meel u dhacayso kiisas waaweyn oo lagu eedeynayo qaarkoodna la sheegay inuu faraha isagoo kula jira cadeymo laga hayo. waxaa kamid ah kiisaskaas aadka u waaweyn ee lagu eedeynayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ee xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, kiiska dacwadda gabadhii sarkaalada ahayd Ikraan Tahliil oo la sheegay in cadeymo cadcad lagu hayo, taas oo ay sheegeen taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda ee gobolka Banaadir Yaasiin Faray. waxaa la sheegay in taliyihii hore hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo taliyihii hay'adda nabad sugidda ee gobolka Banaadir Yaasiin Farayba laga dalbaday ayaga laftigooda laguna wargeliyay in dhammaan ay keenaan cadeymaha ay ka hayaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo la sheegay in kiisaskaas waaweyn iyo dilalka qorshaysan lagu eedeynayo. Roble ayaa la sheegay inuu qorsheynayay safar ugu imbabaxo Imaaraadka Carabta, balse waxaa la dul dhigay amar ah inuusan dalka ka bixi karin, waxaana lagu wargeliyay inuusan lahayn xasaanad haddii uu isku dayo inuu dalka ka baxana ay dhibaato iyo sumcad darro iyo sharaf darro ay ku dhici karto in garoonka laga soo celiyo Maxamed Xuseen Roble. waxaa la sheegay Roble inuu aad uga carooday amarkaas iyo in lagu sheegay inuusan dalka ka bixi karin. waxa uu aad ula yaabay amarka sheegay inuusan dalka ka bixi karin iyo eedaha loo haysto. Roble ayaa la sheegay isagoo aad ula yaaban waji gabaxna kala kulmay amaradaas inuu ku sugan yahay gudaha Muqdisho, waxaana la sheegay in hotel magaalada caasimadda ee Muqdisho ku yaala uu kireystay, taasna la sheegay in maalmaha soo socda iyo isbuucyada soo socda oo ku sugnaan doono tani inta xal laga gaarayo dacwadaha ka dhana Roble ayaa waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay abid ee Soomaaliya soo mara ee lagu eedeeyo dilal qorshaysan iyo afduubyo ka dhana dad Soomaaliyeed oo shacab. waxaa arinta la yaabka ah ayaa waxay tahay in taliyihii hay'adda nabad sugidda ee waqtigaasi Fahad Yaasiin oo cadeymo iyo eedo culus hordhigay Roble, waxaana muuqata in uu noqonayo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee lagu eedeeyo isagoo xafiiska jooga laynta iyo dilka dad shacab ah. arintan ayaa waxay noqonaysaa ama ay ku noqonaysaa Roble fashil iyo fadeexad uusan abadkiisa meel ka gelin ama markastaba daba soconaysa. waxaana muuqata in taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda gobolka Banaadir labadaba la sheegay inay hayaan cadeymo cadcad oo ka dhana Roble, taasna ay sahlayso in Roble xabsiga loo taxaabo. waxaa dhici karta Roble in uu xabsi daa'im ku dhameysto, waxaa dhici karta Roble in xabsi dheer lagu xukumo haddii lagu helo eedaha iyo cadeymaha la sheegayo in la hayo, taasoo eedaha ugu waaweyn ay ka mid tahay dilka sarkaalada Ikraan Tahliil oo la sheegay in xafiiskiisa laga abaabulay waxna uu ka ogaa. waxay dadka Soomaaliyeed aad ula yaabeen in Roble oo lagu eedeeyay tuhuna lagu hayo in uu arintaas sameeyay ama sarkaalada Ikraan Tahliil ay gacantiisa ku maqan tahay, in dadka Soomaaliyeed oo dhowr mar soo hor istaagay isagoo iska matalaya ama iska dhigaya inuu cadaalad u raadinayo gabadha sarkaalada Ikraan Tahliil ee la sheegay in gacantiisa ay ku maqan tahay. taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo ku-xigeenkiisii gobolka Banaadir ayaa iyaguna waxa la sheegay inay gudbiyeen dacwado iyo cadeymo ka dhana Roble, taasoo isaga laftiisa sumcad darro iyo sharaf darro ku noqon karta. waxaa muuqata in markii hore uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka, balse hadda uu yahay qof shakhsi oo caadi ah, eedo iyo cadeymo culculus iyo dacwado ka dhana laga gudbin karo. waxaana sahlanaanaysa Roble in saacad kasta iyo waqti kasta iyo maalin kasta loo baahdaba ay gacanta ku soo dhigi karaan laamaha amniga. markii hore dadka Soomaaliyeed iyo dadkan dacwadda ka gudbiyay waxay ku doodayeen in ra'iisul wasaaraha guud ee dalka uu ahaa, taasna uu xasaanad lahaa, aysan maxkamadna ka gudbin karin dacwad, lana soo xiri karin, waarna loo jari karin. balse tani waxay sahlaysaa in Roble barta uu ku sugan yahay ama meesha uu ku sugan yahay in si cad looga soo qabto, in si bareera inta looga soo qabto xabsiga loo taxaabo. waxa ayna sharaf darro iyo sumcad darro ku noqonaysaa. waana ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay marka la fiiriyo taariikhda Soomaaliya ee ra'iisul wasaarayaashii soo maray iyo kuwii isaga ka horeeyay
in ra'iisul wasaare dhan oo dadkii uu madaxda u ahaa qaar ka tirsan saraakiisha hay'adda nabad sugidda lagu eedeeyo dilal qorshaysan. Waxaa kaloo jirta dacwad uu qorsheynayo Cabdiwahaab oo ah professor Soomaaliyeed oo geyiga Soomaalida caan ka ah, dadka Soomaaliyeedna aad u yaqaanaan. Isaga laftiisa ayaa lagu eedeynayaa in professorka uu damcay inuu shirqool uu ku diro balse aysan u suurtagelin. Waxaa muuqata in abaabulka dhan Rooble ay bilowdeen, taasoo la sheegayo in Rooble laftiisa uusan haynin wax uu uga hortago. Inta badan shacabka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in Rooble loo dhigay damino siyaasadeed balse uusan inta badan kiisaska lagu eedeynayo uusan isagu wax ka geysan ama uusan wax ka ogeyn balse la hareer mariyay oo uu ilduufay. Waxaana muuqata in kooxo mayal adag oo madaxyaala ay ku hareereysnaayeen xafiiska ra'iisul wasaaraha, kuwaasoo inta badan la sheegay in ay ra'iisul wasaaraha marin habaabiyeen ama ay jidka ka leexiyeen. Waxaa inta badan lagu eedeynayaa oo isu soo taraya in dilalkaas uu inta badan wax ka ogaa balse gacanta fulisay uusan isaga ahayn. Taas ayayna dadka inta badan dacwadda ka gudbinaya ay ku eedeynayaan. Haddii Rooble maxkamad la saaro, wuxuu noqonayaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay Soomaaliyeed ee maxkamad loo saaro dil dad shacab ah. Waxa uu waayi doonaa samcaddii iyo sharaftii uu ku lahaa dadka Soomaaliyeed ama uu ku dhex lahaa. Waxaana muuqata ra'iisul wasaare Rooble oo saacado ka hor uun wareejiyay xilka in uu wajahayo cadaadis heer caalami ah iyo mid gudahaaba. Waxaana ilaa hadda la sheegayaa Rooble inuu dirsaday ergooyin balse ergooyinkaas aan laga aqbalin. Waxaa la sheegay intuu xafiiska ku sugnaa in isaga laftiisa ergooyin loo diray balse uu diiday, ganafkana uu ku dhuftay. Waxay dadku qabaan waxay uu shalay ku diiday oo maanta ku yeelay inay wax kala tahay, balse dadka Soomaaliyeed ayaa aad uga dhur sugaya dacwadan meesha ay ku dambeyn doonto iyo difaaca Rooble iyo sida uu iskaga xakameyn karo ama uu iskaga bari yeeli karo eedahan iyo dambiyadan culculus kiisaskan dilka ah ee lagu eedeynay. Rooble ayaa u muuqda mid aan weli si cad uga hadlin arrintaas. Xilligii xilka wareejinayna kama uusan hadlin, ilaa haddana kama uusan hadlin eedeynta uu jeedinayo taliyii hore nabad sugidda ee NISA Fahad Yaasiin iyo ku-xigeenkiisa oo la sheegay in galal dambiye ah oo baaritaano iyo cadeyno ay ku jiraan inay u gudbiyeen maxkamadaha heer caalami ah iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo la filayo inay u fariistaan arrimahaas maalmaha soo socda. Haddii Rooble ay ku cadaato inay gacantiisa ku maqan yihiin dad Soomaaliyeed, qaar kalena oo isku day inuu gacantiisa ku dilo, waxa uu noqon doonaa mid inta badan xabsi daa'im ku dhamaysta. Waxa uu noqon doonaa mid inta badan xabsi ku dambeeya. Taasna waxay sahlaysaa in dhalashooyinkiisa laga kansalo. Waxaa jirta in professor Cabdiwahaab oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed isaguna wado abaabul ka dhan ah Rooble, taasoo dacwad heer caalami oo ka gudbiyay. Ilaa haddana waxaa la sheegay in dacwadaasi ay marayso meel gabagaba ah. Waxaana la sheegayaa in dalka gudihiisa uu ku sugnaan doono inta maalmaha soo socda iyo isbuucyada soo socda, taasoo la sheegay in la amray inuusan dalka ka bixin.